Wafti Baladhan uu Hogaminayo Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Dhagaxskurow Dhuma iyo Dharkeengiyo waxa halkaas si heersare ugu soo dhaweeyay shacabka kala duwan ee magaalooyinkaasi oo caleemo qoyan ruuxayay ugu dambeyntii waxa garaadka iyo waftigiisa loo galbiyay magaalada Dharkeengiyo oo maalinta beriya lagu caleemo saarkiisu ka dhici doono iyadoo meedasha caleemo saarka ku soo qulqulayaan waftiyo kala duwan oo ka yimi dhulka Soomaalidu degto iyo caalamka idilhaantiiba soo dhaweynaynaa waftiga uu Hogaminayo Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale Xasan ayaanu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay deegaanka beesh Dhagaxskurow waxaanu ku soo dhaweynaynaa garaadka iyagu ku dooranayay allow guusha gacanta ku gali ummadda Soomaaliyeed meel walba isaga timi garaadka caleemo saarkiisa u timina waxaanu leenahay gacal sokeeye soo dhawaada maanta waa maalin weyn ilaah baa mahad leh halkan isugu keenay garaadkana waxaanu u rajaynaynaa guul iyo horumar iyo inuu ku soo kordhiyo nabadgelyo iyo horumar inuu ku soo kordhiyo deegaanadeennan loo doortay sida Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa garaad Soomaaliyeed qofku markuu boqor yahay meeshii uu joogaba boqor buu ka yahay oo waxa weeye waa boqor marka laakiin deegaan buu ka soo jeedaa halkan waa deegaankii uu ka soo jeeday asalka ahayd yaanu ku soo dhaweynaynaa ilaahay baa mahad leh maanta isugu keenay madashan quruxda badan ee aad ku soo dhaweynaysaan Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale haddaanu nahay waftigii la socdayna waanu idinka mahad celinaynaa soo dhaweyntan quruxda badan ee aad nagu soo dhaweyseen magaaladan aad garaadkiina ku soo dhaweyseen aad baanu idinka mahad celinaynaa qoraxda iyo waqtiga iyo kulul ee xaaladda waqtigu yahay goorta ay ugu kulushahay ee aad ku sugayseen ee waqtiga badan u taagnaydeen ee aad waqtigiina u soo horteen aad baanu idinka mahad celinaynaa alxamdulillah weeye wax ilaahay loogu mahadiyo weeye ilaa maanta inoo awooday inaynu sidaas quruxda badan ee bashbashtii barwaaqada isku soo baxno igu soo dhaweysaan magaaladeedii ku soo dhaweysaan salaan niyo iyo kalgacal iyo ducaba isugu kay dartaan taana ilaahay noo qaado aamiin waan leeyahay idinkana jasaakullah khayr inta markaan ka soo gudbo waanu wada joognaa isku madal baynu nahay isku dad baynu nahay isku guri baynu nahay ma kala maarmayno mana kala fogi mana kala dhargayno waanu isku soo noqonaynaa insha Allah marka hawsha tan inoo taala ay meel inooga gudubto wax badanna way isweydaarsan doonaa insha Allah biidni kariin wayna wada ducaysan doonaa ilaahayna waxay nooga barayaa insha Allah biidni kariin inuu amuurahayna inoo sahlo si khayr qabtana ilaahay noogu dhameeyo looma kala hadhin ma sha Allah caleemo qoyan sida farxadda leh quruxda badan ee nagu qaabisheen ilaahay agtiisa hal idinku qaabilo ilaahay dambigiina ha dhaafo ilaahay dambigiina ha dhaafo ilaahay dambigiina ha dhaafo kii waalidiintan ha dhaafo kii waalidiintan Allah ha dhaafo ilaahay intii dhibanta ha naxariisto inta nool dambigooda ha dhaafo wixii muraad yaan leenahay maanka inoogu jira khayr ku jira ilaahay noo waafajiyo ilaahay noo fudeediyo if ya akhrabe liibana insha Allah waana wada joognaa waana salaadina waa taagantahay marka waan salaamaya marka leeto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh sida jidka noogu istaagteen caleemaha qoyan iyo ubaxa iyo kalgacalka iyo farxadda aad nagu soo dhaweyseen ilaahay baa idinka baraya jasaakullah khayr inuu khayrka ilaahay idinku bedelo maalinta qiyaame la qaawan yahay sidaad noo qiimaysan ilaahay baan idinka baraya agtiisa inuu qiime idinku dhigo sidaad noo sharafteen inuu ilaahay idiin shafro jasaakullah khayr baan ilaahay ma soo koobi karno shucuurtayada aniga intii wada socotayba wanaagii iyo kalgacalka aad tusteen naga hortimaadeen jasaakullah khayr waa meel bacada oo quruxdu inuu kulushahay marka intaa ka badin ma haynayo Allah idin barakeeyo Allah idin barakeeyo Allah idin barakeeyo sidaan soo dhaweysay Allah idin soo dhaweeyo dambigeena Allah ha dhaafo waalidiintan Allah u naxariisto intii dhimatay Allah u naxariisto inta noolna dambigooda ha dhaaf jasaakullah khayr wa Farxaan Maxamed Aydiid wararka bulsha TV Dharkeengiyo